السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان بمعاميشيدا Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad noogu xiran tihiin maanta waxaynu ka hadlaynaa qayb ka mid ah qaybaha caafimaadka ee kala duwan ee nu soo saarno gaar ahaan barodhaga raganimada u khaaska ah ee loo yaqaano Vitamin haddaba muxuu yahay barodhagani barodhagan waa supplement ama waa vitamin nafaqo heer sare ah oo isla markaana loogu talagalay caafimaadka ragga waxa uu kaalin weyn ka qaataa ama uu taageeraa qanjirka loo yaqaano prostate-ka ama prostatada sidoo kale waxa uu dheeli tiraa ama uu balance gareeyaa hormoonka raganimada iyo sidoo kale wuxuu siiyaa ninka awood fara badan ama firfircooni fara badan waxa uu sidoo kale ka qayb qaataa inuu kordhiyo tira ahaan iyo tay ahaanba spermada ama shahwada raganimada markaynu leenahay tay ahaan iyo tira ahaanba waxa uu kor u qaadayaa marka awoodii raganimada ama caafimaadkii spermada ee ragga waxa uu kor u qaadaa awoodda dhalmada iyadoo uu aad u caawinayo qofka raadinaya ilmo waana tijaabo la xaqiijiyay oo dad badani ay natiijo ka keeneen haddaba faa'iidooyinkiisu aad iyo aad ayuu u badan yahay waana product runtii laga maarmaan u ah nin kasta sida la soconaba prostatada ama prostate-ku waa xaalad qof kasta oo gaadha da'da kontonka oo aad iyo aad uga warwaro xanuuno badanna keeni karta qanjirkaasi prostate-ka haddii aanad caafimaadkiisa aanad ku dadaalina xanuuno fara badan ayuu keeni karaa oo daawadoodu ay adag tahay marka barodhagani waa caawiye wana support weeyaan wana vitamin ciladahaas oo dhan xalinaya sidoo kale ciladaha ay raggu had iyo jeer ka cawdaan oo dhanna wuu hagaajinaya haddaba maadooyinka dabiiciga ah ee uu ka samaysan yahay Vitamin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah maadada loo yaqaano saw palmetto oo kor u qaada ama taageerta prostate-ka iyo hormoonka raganimada waxaa ku jira vitamin C vitamin D iyo E oo dhammaantood iyaguna xoojiya unugyada soo saara spermada ama shahwada waxaa ku jira sidoo kale macdanaha loo yaqaano zinc iyo selenium kuwaasoo iyaguna sare u qaada awoodda taranka iyo ilma raadinta allah ayaa awlaada bixiye waxaa ku jira sidoo kale herbal blends ama isku jiro herbal ah ama macdano kala duwan iyo waxa weeyaan waxyaabo kala duwan oo herbal ah ayaa ku jira kuwaasoo dhammaantood iyaguna kor u qaadaya tamarta qofka iyo firfircoonida ninka ragga ah barodhagan waa barodhagtii faa'iidadiisu ay aad iyo aad u fara badan tahay oo aynaan halkan kusoo koobi karayn waana barodhagti nin kasta aynu kula talinayno si uu caafimaadkiisa ugu daryeelo haddaba haddii aad leedahay ciladaha raganimadu hadday tahay dhanka gogosha haddii ay tahay cilado kale haddii ay tahay prostate-ka iyo haddii aad doonayso caafimaad ahaanba in aad isku daryeesho ama haddii aad tahay qof raadinaya awlaadda iyadoo mar walba awlaadda ilaahay waxa uu bixiyo ay tahay haddana dadaalku waa meeshiisa barodhagani waa barodhagti ku caawinaya natiijadiisana la xaqiijiyey oo la hubo sidee ayaa haddaba loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa 2 xabo ayaad maalintii qaadanaysaa 1 xabo subaxii iyo 1 xabo fiidkii ayaad qaadanaysaa waxaa laga maarmaana waqtiga aad qaadanayso inaad biyo badan aad cabto si uu waxa weeyaan natiijadu ay u noqoto mid fiican biyo badan la cab sidoo kale waxaad muhiima inaad iyadana la isticmaasho cunto caafimaad leh haddii aad heli karto iyo weliba jimicsi intii aad samayn kartaba si aad u gaadho natiijada aad doonayso haddii aad doonayso in aad natiijadu ay aad u weynaato waxaan kugula talinaynaa muddo qiyaastii 3 bilood ah in aad wado taasoo awood u siinaysa jirkaaga in uu si dhammaystiran nafaqadan muhiimka ah u nuugo ama uga dhergo barodhagan Vitamin waa barodhagti loo dhisaangareeyey ragga khaas u ah weyn waxaana loogu talagalay baahiyaadka xagga ragga dhinac kasta ha noqoto inuu xalliyo ayaa loogu talagalay
sida aynu halkaa aynu hore usoo sheegnayba waxaa ku jira fitamiinadii ragga ay u wada baahnaayeen oo dhan ayaa ku jira. unugyadaadii taranka wixii oo dhan caafimaadkoogii ayuu ilaalinaya. waa wax dabiiciya oo xalinaya cilladaha ay raggu ka cawdaan inta badan. haddaba ka faa'iidayso kana lana xidhiidh qofka kuu soo diray fideogan insha allah si uu kuugu dalbo oo uu kaaga faa'iideeyo. wixii tala dheeriyana diyaar ayaanu ku nahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.